waxa doonayso aad weyda kama dhigna dhamaadka guushada dunidan qof walba waxbuu doonaya oo daneynaya helitaankeeda qof walba qorshahiisa uu leeyahay lana hardamiya ka dhabeynteeda si maalinna waxaynu sameeynaa qaar kamid ah qorshayaasheena waxa laga yaabaa waxaad jeceshahay inaad noqoto ama aad ka shaqaysiin ku suurtagali waayaan tusaale waxa laga yaabaa inaad codsi shaqo meel geysato laga soo diiday safar dibadda ku aadi lahayd ka baaqday minha waxbarasho aad balay garaseen laga aqbali waayay haddaba ku niyad jamin hana ka murugoon oo waxa laga yaabaa waxaas inaysan ku ahayn wax ku wanaagsan adiga oo Allah uu kula doonayo meel ka wanaagsan sababtoo ah bini'aadanka ma uu garanayo halka baraarihiisa horumarkiisa uu ku jiro albaab badan oo aad garaacday haddii ay ku firmi waayeen waxay ka dhigan tahay in albaabka uu yahay fidna ka daboolan wax qeyr haba yaraatay inaan kugu jirin Allah quraankiisa waxa ku leeyahay waxa laga yaabaa inaad shay jeclaataan ka oo shariidin ah shayna aad nacbaataan ka oo qeyridin ah haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinayaa qaar ka mid ah dadka ugu caansan dunida kuwa oo ku fashilmay waxa ay doonayeen kadibna helay waxaysan filaneyn waxaan loo rafaadin lama raamsado waxaan lagu riyoona lama rumeeyo waxba anigoon idinku hadal tiriyeen furfurashada barnaamijka ka bagasha haboon waa bilyaneerka reer China ahna ninka labaad ee ugu hantida badan dalka ugu dadka badan dunida ee Shiinaha ahna asaasay milkiilaha shirkadda suuqa online-ka Alibaba ka oo la kulmay guuldarooyin badan waxa uu leeyahay waxaan 30 mar codsaday shaqo waa liga diiday sidoo kale waxa uu leeyahay 24 qof ayaa shaqo ka codsadeen KFC 23 qof waa la aqbalay waxaan ahaa qofka kaliya ee la diiday Jack Ma oo la kulmay guuldarooyin badan ayaa ugu dambeyntii helay fikrad ah in suuqa online-ka wax ku iibiyo fikradda oo ka dhigtay inuu maanta noqdo mid kamid ah bilyaneerada caalamka waxa uu haystaa adduun gaaraya 40 bilyan hadaladiisa laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxaad u baahan tahay la jirka dad toosan laakiin uma baahnid dad wanaagsan madaxweynihii 16aad ee Mareykanka Abraham Lincoln ayaa marar badan ku guuldareystay shaqooyin kaliya doorashada madaxtinimada waxa uu ku guuldareystay 8 mar ninkan ayaa ah nin soo maray wada adag guuldarooyin badan marna aanan quusan ilaa uu ka dhabay hadafkiisa guuldarooyinkiisa waxaad ka arki kartaa shaashada hadaladiisa waxa kamid ah waan u si socod gaabni ah laakiin waligay uma socon gadaal ma fahmi kartaa macnaha ku qorsoon oraahdan aan ku daay warcelinta iyo dhadhanka ku jira oraahda ninka labaad ee ugu hantida iyo jeebka weyn dunida ahna asaasaha shirkadda iyo wax soo saarka guri kasta iyo xafiis kasta galay ee Microsoft waa Bill Gates ayaa ka hor inta uusan asaasin shirkadani ku guuldareystay ganacsi uu doonayay inuu sameeyo sidoo kale waxa uu isaga tagay oo uu ku dhacay imtixaankii jaamacadda uu dhiganayay Harvard University hadallada laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxaan ku dhacay imtixaankii jaamacadda saaxiib oo ku baasay imtixaanka maanta waa injineer shaqaale ka shirkadda Microsoft aniguna waxaan ahay milkiilaha shirkadda ugu hantida badan caalamka wax soo saarkeeduna uu dunida dacaladeeda ku faafay soo saarta qaar ka mid ah smartphone-yada ugu qaalisan dunida waana shirkadda Apple asaasaha shirkadda oo Steve Jobs ayaa 1985 laga ceeriyay shirkadda isagoo ceerinta ka hadlaya ayaa waxa uu yiri ceerinta laga ceeriyay Apple waxay ahayd wixii ugu wanaagsan ee ku dhacay ebid waayo waxaan u fakaray waligay si aanan u fakarin Steve Jobs ayaa shirkadda dib ugu soo noqday 1997 isagoo ah madaxa shirkadda soo noqoshadiisana shirkadda Apple waxay u noqotay guul waaweyn oo ay gaartay 2007 ayay soo saartay telefoonkeedii ugu horeeyay smartphone ah ka oo aad loo iibsaday sanadkeedii koowaad waxay iibiyeen in ka badan 6 milyan oo telefoon hadaladiisa waxa kamid ah hawo ogolaan in dadka kale fikradahooda inay ka qayliyo xog bataan fikradaha adiga ka dhex guuxaya Steven Spielberg waa director soo saara filimada ahna screenwriter waxa uu codsaday shaqo film iyo TV school muddo 3 mar ah laakiin waa uu ku guuldareysanay mar walba in la aqbalo maanta waxa uu haystaa hanti gaaraysa in ka badan 3 bilyan Albert Einstein ayaa physics-ka ku soo biiriyay aragtiyo badan 1921 ku guuleystay Nobel Prize-ka ayaa wax hadal laga waayay ilaa uu gaaray 4 sano iskoolkana waa laga ceeriyay macalinkiisana waxa uu sheegay inuu maskaxaan hooseeyo laakiin wax waliba way isbedeleen Einstein waxa uu noqday mufakir aragtiyo badan ku soo biiriyay physics-ka hadaladiisa waxa kamid ah qof aanan weligiis qaldamin ama aanan guuldareysan waa qof aanan weligii wax cusub isku dayin hubantida ama inay ku caday waxa doonayso waa awooduna waa wax kugu riixaya inaad samayso kana dhabayda waxa doonayso intaas ayaan ku soo gaabinayaa barnaamijkeena maantay waxaan filayaa in wax badan kaaga baxeen kana faa'iido cashir guuldarooyinka dadkaasi waayo qofka fahamka dheeri waxa lagu tilmaamaa inuu yahay qofka cashirka barta dadka kale guuldaradooda